waxa ii muuqanaya Mengistu Haile Mariam oo halka fadhiya oo aan oran doono mudane oo dhigyacab aysan jirin xaaladdu ay la yaab leedahay waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxa kamid ahaa 1986 bishii January magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti waxa lagu qabtay aasaaskii urur goboleedka IGAD waxa ka qayb galay madaxweynayaal oo kamid yahay Allah u naxariistay madaxweynihii Jamhuuriyadda Djibouti Alxaaji Xasan Guule Abdon Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii dalka Soomaaliya iyo madaxweynihii dalka Suudaan Suwaaro Dahab iyo hogaamiyihii dalka Itoobiya Mengistu Haile Mariam kulankaas aasaaska waxa fursad loo helay in la istuso General Maxamed Siyaad Barre iyo Mengistu Haile Mariam Soomaaliya iyo Itoobiyana laba jeer dagaal dhex maray marna Mengistu ayaa joogay marna waa markii 64 marka labada dal mar walba colaadoodu cirkay ku sharafnaa dacaayado ayaa jira la isu marinaya hawada Soomaaliya waxaan xusuusanayaa dagaalkii 77 kadib faallooyinka la qori jiray waxay ahaayeen kuwa aad looga sheekeeyo xumaanta iyo dulmiga iyo dhibaatada rejiimka ama nidaamka Itoobiya oo heeso badan ayaa la qaaday oo Soomaaliya Hargeysa iyo reedi Muqdisho laga qaaday jiro Itoobiya iyo hogaamiyaheeda Mengistu iyo kulli wax looga sheegay ayadoo xaalku saayahay ayaa January 86 la istusay labada hogaamiye waxa lagu heshiiyay bilow wada hadala iyo in la joojiyo dacaayadaha طبعا marka labada warbaahin labada dhinac laba dacaayada ka socda waxay iska sheegi jireen ha way inagu dacaayada aan tabino marka Soomaaliya ku sheegi jireen Soomaaliya ku sheegana iyo afka Amhariga jira iyo afka qalaad oo dhan waa lagu sheegay marka faallooyinkan af Soomaaliya dad ku dhageysan jireen oo af Amhar waa bixi jireen waa la tarjuma way iyagana marka reediyooda af Soomaaliya waa ku sheegi jireen afafkoodana ku sheegi jireen fariin baa timid marka way oo la leeyahay wasaaradda warfaafinta in wixii ka dambeeya hadda Mengistu Haile Mariam aan la oran dhigyacab ama umuladoox ama dhigyacab oo la yiraahdo mudane Mengistu Haile Mariam way warkii shantaan akhriyay adoo raali cagta Mengistu waxa lagu sheegi jiray dhigyacab iyo umuladoox iyo maaragtay magacyo foolxun dhankooda iyaga maxay lagu sheegi jireen oo Siyaad Barre ku sheegi jireen ma yaqaan iyagu dabcan markay afkooda ku hadlayaan xabashiga normally idaacadooda af Soomaaliga saddexdii galonimo xilliga geeska Afrika ay bixi jirtay normally iyagu warar iyo music iyo barnaamijyo ku sameey jireen laakiin afafkooda ay ku sheegi jireen waxay rabaan iyagu af Soomaaliga waxba dacaayad kuma sameeyeen ku sameey jireen mararka qaar dabcan dad laakiin monitor gareey jiray oo la socod jiray way ka soco marka fariin baa ii timid oo la leeyahay caawa 8 shirka marka laga hadlayo ka socda Djibouti oo la sheegayo madaxweynayaasha magacyadooda Mengistu Haile Mariam dhigyacab umuladoox lama oran karo waxa la leeyahay mudane way ya fariinta ku keenay fariintu waxay ka imanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda warfaafinta Soomaaliya sidaas ku imanay way waa amar weeye okay habeenkii 8 baa la gaaray nasiibkaaga marka adaa ku qoran warka ana warka ku qoran gabadhii xiriirintu waxay tiraalkan waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 8 fiidnimo xilligii warka Maxamed Xaaji Cagmariga ku soo dhawaada muusiga bilowday waxa ii muuqanaya Mengistu Haile Mariam oo halka fadhiya oo aan oran doono mudane oo dhigyacab aysan jirin xaaladdu ay la yaab leedahay warkii markaan bilaabay shir goboleedka IGAD ayaa ka socda Djibouti madaxweynaha ka qayb galay waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya General Maxamed Siyaad Barre madaxweyne Alxaaji Xasan Guule Abdon madaxweyne Suwaaro Dahab iyo hogaamiyaha dalka Itoobiya mudane Mengistu Haile Mariam eragaas mudane oo ninkii laga joojiyay dacaayadii si guudana loo joojinaa kaligii maaha way adiga marka maxay kula hayd waa go'aan oo wala heshiin kara laakiin carabkaagii u bartay inuu garaaco ninkaas inuu ka joojiyo ayaa cilada arinta kale yaab kale ku sheegaa waxaan raacay adaadta militariyaasha Soomaaliya jooga iyo warfaafinta qolooyinka u qaabilsan safaaradaha waxaan tagay meel yar Balidhig dad badan oo xabashiya lagu laayay videogii telefishinka la soo duubay askartu aad bay u faraxsantay waxay leeyihiin ilaa 300 oo askari oo Itoobiyana ayaan dilnay waa arin la yaab leh guul baan gaarnay waxaan ka adkaanay cadawga xabashida go'aystaha xabashida askarta waxaan la saaranahay qaarkood waa waqtigaas waqtigaas waxa waaye 1989 way markaan xamar ku laabtay ee barnaamijka aan diyaarinay ayaa war yimid degdega waxa la leeyahay maadaama heshiis oo dhacay yaan la oranin cadawga
waaye mana dhici karto barnaamijka ama in la baajiyo waayo ama askarta siday u faraxsan yihiin cadowga gumaystaha say u dhahayaan qir markay gaartay aakhirka waxaa go'aanka uu noqday in la sii daayo hadalkaas ah askartu siday baraarahooda ugu faraxsan yihiin markan aad soo duubayso waa 89kii waa barnaamij dabcan Itoobiya ay wadato in la gabagabeeyo wixii weerar ah ee ka imanaya halkaas si aan mar dambe la isu weerarin labada dhinac sida lagu heshiiyay mar dambe aad marka 89kii barnaamijka soo duubi doonto laakiin 86 warkaad akhrisay waxaa la bilaabay inaan mar dambe ninka odaga waxba laga sheegin aduna ha wariyay ugu horeeyay ee mudane Mengistu ka sheegay Mengistu Haile Mariam yiraahdo